dareenkayga lama soo koobi karo lamana xisaabi karayo waayo 11 qof baa iga dhimatay haddana 3 dhaawac ay taalo 3 dhaawac oo qaarkood aan ogaan lahayn oka Soomaalida ku daawanayso maxaad ka codsan lahayd wallahi qofka islaana kulli wuxuu caawin karaa saga intan ka qasbi maydo hooyaluul xasan aadan ma awoodin hadalka ay dhameystirto waayo waxay dareemaysaa xanuun kaasoo ah in 11 qof oo familkeeda ah hooyadeeda ay ugu horeysay hal gabar ay ifka ka haysatay gabar la dhalatay iyo 8 kale ayadoo ay waalid u ahayd inay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado 3 kamid ah dad ku soo dhaawacmayna waxay xaaladooda kula tacaalaysaa gudaha isbitaal Madiina xaaladda ay ku jiraanna waa mid garaaw ah dadkaasi dadka muslimiinta ayay ka codsatay inay caawiyaan indhaheeda waxaa ku taagan ilmo murugada ka muuqata waa mid xanuunkeeda leh balse qadarta Rabbi meesha kama marna wallahi aniga dareenkayga lama soo koobi karo lamana xisaabi karayo waayo 11 qof baa iga dhimatay haddana 3 dhaawac ay taalo 3 dhaawac oo qaarkood aan ogaan lahayn kulli dibka haysta marka waa dareen kartaa adiga laftirkaada 11 qof yaa kugu horeeyay kugu sareeyay macna maanta qof weyn kaaga jiro hooyo yaa kale walaashay wiil oo curada aabiyooyay dhashay oka bal gabar kale ayadan xaamilo ah ku jirto meeshan cunugeedii meed isbitaalka ka soo dhaxsaareen xabada ku dhacday fadlan ahaan taa waxa la yiraahdaa Siin Maxamuud Xasan walaalkay aan dhalay qoyskaas intaysan dhibka gaarin ka hor xaaladoodu sida yahay wallahi xaaladoodu way iska wanaagsaneyd inkastoo maxaan ku raadis ku filaansho saa'ideynaysanaysan kulli dad dhaqmaay un bay ahaayeen oka meeqasna ku noolaayeen halkii laga keenay wallahi taa in badan bay ku noolaayeen waayo aniga xamar waxaan joogaa 17 sano dowladnimadeedii aan soo galay hooyo hal mar halkaan igu timid isbitaalan geeyay ka bacdina way caafimaad qabta hubiyaan gurigooda ugu taga oka ma la xisaabi karo oka Soomaalida ku daawanayso maxaad ka codsan lahayd wallahi qofka islaana kulli wuxuu caawin karaa saga intan ka qasbi maydo ma intii dhimatay way dhimatay waxaan doonayaa intaan nool in wax la helo qabto ma jirto wax dhimasho ah sida maamulka isbitaalku ay sheegeen waxaan isku dayay inaan sii wareysto ehelada kala duwan ee dadkii kaga soo dhaawacmay Balad Xaawo xaaladooda caafimaad kula tacaalaya gudaha isbitaalka ima iisan suura galin sababtuna igu sheegeen inaysan hadal kuba awoodin xaaladda ay ku jiraan awgeed kurba kurfeede waa ilaahay gudaha isbitaal Madiina wali waxa lagu la tacaalaya xaaladda dadkii dhaawacyada ahaa ee laga keenay Balad Xaawo ee halkaas ku soo dhaawacmay qoftan waa hooyo Zainab ayadoo xaamila halkaas ay xabad kula soo dhacday waxayna ifka ku weysay cunuga ay caloosha ku siday oo markaasi isbitaalku ay sheegeen inay u sameeyeen gurmad oo ah sida ay markaasi cunuga ugu soo saari lahaayeen qaar kamid ah hadda bukaanada halkan lagu dabiibayo xaaladoodu waa mid markaasi iska normal ah iyadoo maamulka isbitaalku ay ka dawareegayaan sida ay noloshooda ula tacaali lahaayeen Balad Xaawo dagaalkii ka dhacay waxa uu ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland dagaalkaasi waxa uu ahaa mid qasaare ka dhashay isla markaana inta badan ay waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah oo halkaasi deganaa oo u badnaa famil markaasi guryahooda ay madaafiiciyo ku dhaceen markaad gudaha isbitaalka soo gashana waxaad arkaysaa famil badan oo markaasi la jooga dadkii ka soo dhaawacmay ee halkaasi laga keenay inta badan wajiyadooda markaad fiiriso waxa ka muuqato murugo isla markaana waxa jirta qoys halkan ku sugan ka murugaysan qoyskooda kale ee dhibaatadu soo gaaray ee markaasi ku soo waxyeeloomay dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado inta badan hadda degmada Balad Xaawo gacan ku heynteeda waxa la wareegay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xaaladuna waxa ay tahay mid degan Fadama Cabduqaadir Xasan raadiyaha iyo TV-ga dalsan gudaha isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier